madaxweynaha Somaliland oo shantii maalmood ee la soo dhaafay booqasho rasmi ah ku joogay wadanka Imaaraadka Carabta ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa. Inkastoo madaxweynuhu dhowrkii maalmood ee safarka uu ku joogay aanu warbaahinta ka soo muuqanin, hase yeeshee khudbad socotay saacad barkeed ayaa waxa uu u jeediyey jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan wadanka Imaaraadka Carabta. waxaana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka warramay xaaladaha wadanka ka jira iyo natiijooyinka uu kala kulmay mas'uuliyiinta uu la qaatay kulanka ee ugu sarreysa wadanka Imaaraadka Carabta. arrimaha sida weyn la isu weydiinayo waxaa ka mid ah arrinta dhoofinta xoolaha oo shacabka Somaliland ay si weyn ugu tiirsanayeen dhaqaale ahaan, ogolaanshaha baasaboorka Somaliland in lagu tago dalkaasi iyo dhismaha dekedda Berbera iyo mashaariicda la xiriidha. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maruu ka hadlayay arrinta baasaboorka oo Imaaraadku sanadkii hore markii uu booqday halkaasi ay ballan qaadeen inay Somaliland ka gacan siinayaan balse aanay waxba ka qabsoomin. waxa uu ka warramay halka arrinta baasaboorku ay marayso. arrinta baasaboorku waxay gashay farqiyo badan oo caalami ah oo dagaalada loolanka adduunka ka socda ayuu dhex galay. waxaanu filaynaa ilaahay idinkiisa inoo ballan qaadeen ilaa bisha Juulaay inuu markaas soo baxo madaxiisa maanta. waa ognahay xanuunka ay ku hayso dadkii dhalinyarada in la helo baasaboor, laakiin waa hawl adag. dhoofinta xoolaha oo lafdhabar dhaqaale u ah Somaliland iyo shacabkeeda weli waxay ka xaniban yihiin in loo dhoofiyo suuqyada khaliijka. Imaaraadku sanadkii hore markii madaxweyne Biixi uu booqday waxay u ballan qaadeen Somaliland inay ka gacan siinayaan sidii xoolahaasi loogu furi lahaa suuqyada khaliijka, balse ilaa iyo hadda waxba kama qabsoomin. waana kan madaxweyne Biixi oo arrintaasi sharaxaya isla markaasina rajo ka qaba in arrintaasi Imaaraadku mar kale ay ka howlgalayaan. waxaan bariga ku heshiinay oo aad inoo dhibaayay oo haddana taagan in xoolaha Somaliland loo furo suuqyada khaliijka iyaguna marketkooda ay noo furaan. hawshaasi weli may dhammaanin, waxay ku jirtaa hawl weli socota, laakiin aynu u baahnayn hawl aad inoogu taagan oo inay hore u dhammaato. shalay waxay ahayd qodobka koowaad markaan uu hadalay sheekha mutagrina wuxuu yiri hawsha hore oo aynu ugu ballan qaadnay bal hadda maysata Sacuudigu oo hawlo badan maraysaay tasuuqeedu waa in degdeg u dhamaato. wiigana waxay dirayaan qolada baaxishkooda. mar kale ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay arrinta shaqo abuurka dhalinyarada oo sanadkii hore markii Imaaraadka uu booqday la soo hadal qaaday in loo furo dhalinyarada Somaliland halkaas inay u shaqo tagaan. ayaa sanadkan waxa uu sheegay Imaaraadku inay tixgeliyeen arrintaasi isla markaasina ay ballan qaadeen in halkaasi loo dhoofiyo 40 dhalinyaro. shalay waxaanu ka codsanay dadka graduateska ee jaamacadaha dibadda ka soo baxay ee Somaliland jooga ee gaar ahaan ku soo takhasusay petroleumka iyo hawlaha kale ka banaan in tixgelin gaar ah loo siiyo oo inay halka yimaadaan oo waxay dukumeentiga ama lagu siiyo shalay ay noo ogolaadaan iyo dadka la midka ah shaqooyinka muhiimka ah ka yaqaana. odaygu waa naga aqbalay kuwii la joogayna waa faray. jaamaco qolada macalinta qaabilsan wuxuu soo diray inta ku taagan imika 40 muu sheegtay hala soo qaado luur iyaga shaqo. madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Berbera uu yahay garoon qiimo badan leh, isla markaasina haddii dowladda Imaaraadka laga kireeyo halkaasi ay ogolaato loo isticmaali karo in diyaaradaha waaweyn ee qaaradaha isaga gudbaa ay halkaasi isticmaali karaan. waxaana uu rajo ka muujiyay Imaaraadka in arrintaasi uu ka ogolaan doono maadaama aanay dowladda Imaaraadku dhisi karin garoon diyaaradeed oo isaga la mid ah oo ay caga dhigan karaan diyaaradaha wada xamuulka culus. haddii ay aqbalaan in garoonka loo isticmaalo oo lala wadaago oo filaya inay imika u dhagan waliyo ay aqbalayaan, waxaan qabaa inay tahay guul kale oo weyn oo dekedda berri aynu ka helay oo diyaaradaha caalamka oo dhan iman karaan. waana fikrad imika aan codsanayno. airportku weyn xoolo badanna waa la geliyay, deked kalena way dhisayaan. waxaanu xitaa fikrad soo dhaweyn ahayd airportkaasi inaanu ku ekaano diyaarada yar oo military inay ka duulaan inuu noqon karo garoon loo isticmaalo sida mushtara. waayo dhisi kari maayaan garoon inta dheer iyo xoog leh. garoonkan waxa ka soo degi kara diyaaradaha qaada 120 tan 160 afartan 5 taagi kuwa qaada. haddii loo isticmaalo cargo waxay la mid yihiin dekeda kale oo kale oo waxa dhigi kartaa
alaabta uu markabku dhigo waxay iman kartaa diyaaradda Nigeria ka imanaysa ta Suudaan ka imanaysa ta Ethiopia ka imanaysa ta Afrikada dhexe diyaaraddu waxay qaadataa 160 kun oo tan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sifeeyay cilaaqaadka dhaxmaray Soomaaliland iyo Imaaraadka waxaana uu sheegay Imaaraadku in Soomaaliland uu u noqday gabaad ay ka hoos galaan duufaanada dhanka siyaasadda ee soo maray geeska Afrika waa ogtay sanadkii tagay duufaano siyaasadeed oo kala gedsan baa ka kacay geeska Afrika waxyaalo badan baa cirka isku wada shareeray mar walba cod lagu tixgeliyo su'aal waxa tiraahdaa ama buuraha ama buur ku tirsanaw cudud dhaqaale lagu tixgeliyo oo galaan gal badan leh oo saaxiibo badan leh oo in badan naga caawiyaan uga mahadnaqano ayay noqday qoladan aynu saaxiibada noqday Imaaraadka oo aad iyo aad u mahadnaqo